والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوتي في الله، maanta waxaa noo suurto gashay inaan daah furno isbitaalka Daryeel waa 25kii bishii 10aad 2019 waa isbitaalkii ugu horeeyay ee takhasusada laga furo gobolka Mudug gaar ahaan magaalada Gaalkacyo. waxaa aayadaha Qur'aanka Kariimka qowlka Eebbe noogu furaya macallim Shuuke falyatafaddal mashkuura. ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. صدق الله العظيم. صدق الرسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين كاسيوها معنا الشكر أيضا القرآن الكريم كي يقول كيبن وقفرين. كان وحن وعي الشيخ محمد حسن وكلمته يروعدي الناس الشيدينية. فليتفضل الشيخ محمد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. walaalayaalow waa sharaf bay kolba aniga ii tahay waana wax fiican meeshaas isbitaalkan xafladiisa furitaankiisa oo Daryeel inaan ka soo qayb galay inkastoo anigu aan meelaha diiniga aan ka qayb galo tanna laakiin waa shay duniya oo muhiim ah oo aan diintii ka maarmayn oo diintii laftigeedii ay asal u tahay weeye. marka awalan marka hore waxaan isku dardaarmaynaa cabsida ilaahay inaan ka cabsano. ilaahay quraankiisa wuxuu ku yiri: yaa ayuha alladina aamanu kuwa ilaahay iyo rasuul rumeeyay ittaqullaha ilaahay ka baqa wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin nafha fiiriso waxay bari u hormarisay bari waa yawm alqiyaamo. nafka saha fiiriso amalkii ay diyaarisay oo yawm alqiyaamo ay u diyaarisay oo asalkiisu yahay cilmu dibbi cilmiga waxa lagu daaweeyo dadka lagu daaweeyo. isbitaalka marka iyo cilmigiisuba wax muhiim ah weey oo nabiga kaleey salaatu wasalaam dibbiga asalkiisu nabigu ka sugnaaday nabigu dabiib buu ahaa malab dab quraan intaba nabigu intaas wax ku daaweyn jiray waxyaalo kale ka bacdi cilmigii waasi sabankii haba uu ka dambeeyaba waa lagu sii ijtihaaday laamaya dhamaan khiyaarta meeshan ka soo qayb gashay gudoomiyaasha xildhibaanada isku duwa caafimaadka wasiirada dhamaan waxaan ku salaamayaa ka soo qayb galayaasha kulli odayaal iyo dhaqaatiirta haweenka kulli waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. aad baan kaga mahad celinayaa sidaa noo soo ajiibteen. bacda salaan isbitaalkan Daryeel waa horena ugu shaqayn jiray haddana waa dib u furis weeye. waa isbitaal takhasusi ah dhaqaatiir waxa ka howlgelaysa isbitaalisiyaal ah ajaanib iyo Soomaali isugu jira. isbitaalku wuxuu ka kooban yahay qayb bukaanjiif saacadii qaliinka dhaqaatiir kala duwan oo sida ANT-da dhakhtarka cudurrada guud neerfaha kaliyaha iyo kaadinbareenka haweenka iyo daandaystaha kulli intaas oo kooda kooban yahay baahiyaha isbitaalka u baahnaa oo dhan intii aan islahayn gobolka waa ka dhiman tahay waa intii karankeena waa ku dadaalnay. waxaan rajaynaynaa insha Allah wixii naga dhiman oo na dib in ugu soo darno
wixii tala bixin oo nala siiyana aan qaadano haddii la idmo waxba ku sii dhaaraamahay hadalka waxaan ku wareejinayaa. Now I want to welcome Mr. Muhammad Maulid Mullak, Doctor for Dentistry. Please welcome. You have to speak English, I will translate it for you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Good afternoon. My name is Muhammad Mutlaq. I'm a Syrian dentist. Inshallah, tomorrow we'll start receive patient in Dariel Hospital and receive all cases to treatment. And thank you. Wait. waxaan leeyahay magacaygu waa Maxamed Mullaq waxaan ahay nin Syrian ah isbitaalkayga takhasuskaygu waa dentistnimo ama ilkaha ka shaqeyntooda waxaan biri ku qaabili doonaa qof kasto ka camanaya ilkaha insha Allah waxaan si alla qadarayaan u fududeyn doonaa. Continue. Which work do you want to do? In Dariel Hospital, inshallah, will give to patient all treatment about RCT, root canal treatment, and orthodontic and fixed and removable denture, and scaling, and every treatment necessary in dental treatment. Thank you. ما شاء الله wuxuu leeyahay waxaan daaweyn doonaa root canal oo ah xididka isku xira ilkaha sidoo kale waxaan buuxin doonaa ilkaha maqan sidoo kale waxaan xiri doonaa ilkaha spaceyada leh ama meelaha banaan leh aad iyo mahadsan yahay haddana waxaan rabaa inaan u waco Dr. Jihad. I want to welcome Mr. Hassan Jihad Kaljin. He's a doctor for urology. Please welcome. Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أصحابه أجمعين. Today we are meeting here together to open this healthy care hospital, and I hope this hospital in Galkayo will be the first hospital and the better hospital in Galkayo and all Somalia, inshallah. Anyway, I want to say me and a urologist doctor and the other doctor in this hospital, Somalis and Syrians, we try to give the best of our skills, these skills which we take from Allah subhanahu wa ta'ala, to care all the patients in this hospital, to give our best to treat and to make all the surgeries in this hospital. wuxuu leeyahay maanta kulankeena waa kulan farxadeed waxaan rabaa inaan meeshaan ka sheego waa isbitaalkii ugu horeeyay aan kalkacyo ka howlgalo waxaan rabaa inaan daaweeyo qaybaha kaliyaha iyo marinada dhan oo kaadida ka shaqeyso daawada Ilaahay bay ku xiran tahay laakiin waan isku dayeynaa anagu we try to best daawada sida ugu wanaagsan baan isku dayeynaa laakiin Allah ayay ku xiran tahay. The second thing there in Syria, they say when you be with other persons for more than 40 days, you will be one of them. And we hope here in this city will be one of you. We will be as your brothers. All those persons will be as our brothers, as our family. We didn't leave our family in Syria to come here. We come to be one of you. ما شاء الله wuxuu leeyahay qof kamid oo Syrian ah haduu halkan yimaado waa qof Soomaali kamid oo kaleete marka wax cabsi iyo cabashaan ugu jiraan mid kale waxaan islanahay hal family kaliya we are one family marka waa isku dayeynaa daaweynta insha Allah. Continue. Conclusion what you say. Okay. At the end, I want
from all the persons here to send this message from me and from the other doctors to all the people in this city. We come here to help them, to treat them, so we ask them to trust us and trust by Allah. Thank you. ما شاء الله وحلي وين إلهي اللي آمنا قفك وين اللي آمنا كروا الله. Thank you. السلام عليكم. وعليكم السلام. sidoo kale waxa meesha ku xusan laba dhakhtar oo ajaaniba oo galabtay furitaanka aan la joogin waa Madiina Ahmed Al-Khadab oo ah dhakhtarka neerfaha ka shaqeyn doona. sidoo kale waxa joogta dhakhtarad u dhalatay dalka Uganda ay ka shaqeyn doonta qaybaha dumarka lagu daaweynayo. aad iyo maasiin kuwaas hadana waxaan rabaa inaan u waco kelmad yar oo xarig jarisa maadaama istaal cusub uu yahay waxa xarig noo jaraya isku duwaha wasaaradda caafimaadka Cabdi Maxamuud Xirsi falyatafadal mashkuur. أولاً السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهرين waxaan salaamayaa maayarka magaalada Gaalkacyo mudane Xirsi Yuusuf Barre gudoomiye ku-xigeenka gobolka mudane Qodaar wasiir dowlaha waxbarashada mudane Burhaan xildhibaanada galmudug ka tirsan bahda caafimaadka guud ahaan isugu jirta dhaqaatiirta guruubyada kale ee ka shaqeeya caafimaadka ugu horeeyaan dhaqaatiirta odayaasha dhaqanka haweenka dhalinyarada culimada diinka marlaba assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. bacda salaan waxaan rabaa xafladan maanta aan taaganahay ee lagu furayo isbitaalka Daryeel inaan maaragtay wax yar aan maaragtay ka taabto. isbitaalkan Daryeel waa isbitaal kamida isbitaalada wasaaradda caafimaadka gobolka ay aqoonsan tahay isbitaalada gobolka oo gaarka loo leeyahay. isbitaaladu kuwana gaar loo leeyahay kuwana waa kuwa maaragtay public ah. isbitaalada gaarka loo leeyahay wuxuu kamid yahay isbitaalada wasaaradda caafimaadka ay aqoonsan tahay oo ay siisay shatiga kadib markii uu soo buuxiyay sharuudihii loogu talagalay markii la siiyay foomkii wasaaradda caafimaadka ay maaragtay ugu talagashay isbitaaladu inay soo buuxiyaan. marka isbitaalkan wuxuu kamid yahay isbitaaladaas waana isbitaalada cusub ee dhawaanahan ku soo biiray gobolka ayuu kamid yahay. waa isbitaal aan filayno insha Allah ka filayno in baahidii ka dhimanayd isbitaalka qaybihii maadaama gobolka isbitaallo badan ka furan oo bareefad loo leeyahay isbitaallo waxa ka furan ee public ah qaybtii asagu uu sida gaarka uu maaragtay ugu talagalay inuu buuxin doono oo bulshaduna ay ka faa'iidi doonto sida aan rajeynayno la rabana in maaragtay madaxda isbitaalka ee ugu horeeyo agaasimaha maaragtay isbitaalka iyo dadka ganacsatada ee geliyay maalkooda iyo hantidooda inay ayaguna faa'iido helaan bulshada ay u yimaadeen ay u turaan u dhimiriyaan. waan la soconaa isbitaalkan hantida intaas la geliyay in dadka hantidaas geliyay ay ugu talagaleen inay u faa'iideeyaan bulshadooda balse aysan rabin inay faa'iido badan ka helaan. faa'iidada dadka ka helaya waa bulshada gobolka Mudug maadaama loo aadi jiray serviceka uu qabanayo dibadda loo aadi jiray oo ay ku bixi jirtay qofkii ugu yaraan $10,000 haddana aan filayno qofka ugu yar asoo gurigiisii jooga oo waalidkiis la jooga oo dadkiis la jooga oo dhulkiisii jooga inuu helayo adeegii uu meelaha kale u aadi lahaa. marka waxaan filaynaa inay bulshaduna ka faa'iido. waxaan ku baraarujinaynaa bulshada reer Gaalkacyood bulshada gobolka Mudug iyo dhammaan bulshada reer Galmudugba inay maaragtay faa'iido u tahay isbitaalkan. annaguna kuleeba ka wasaaradda caafimaad ahaan waxaan sameyn doonaa jadwal ayaa nooga degan isbitaalada kuwa gaarka loo leeyahay kuwa bareefadkaaba inaan ku sameyno routine and evaluation 3 bilood mar aan nimaadno bal inay hawshii ay sheegeen ay qabteen iyo inay meeshoodii ay taagan yihiin. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh.